asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meelaad joogtaanba waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaad ka bacdi daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan casharkii alaaba idiisoo diyaarin jiray channelkan saac software waxaanu horta aada iyo aada idinka raali gelinaynaa casharadayda oo hakad galay howlo soo wajahay awgeed aada baan idinka raali gelinaynaa kolley galabta waxaan aada u jecelahay inaan idisto insha allahu tacaala waxyaabo ama cashar aada faa-iido leh qofkii hore u yaqaanina alxamdulilah rabbilcaalamiin weeye kan aan hore u aqoon ee maanta daawadanayaana waxaan leeyahay kusoo dhawow oo ka faa-ideyso ka faa-ideysi wanaagsan insha allahu tacaala casharkan tusaya waxa weeye how to make a BitLocker sidee loo sameeyaa BitLockerku waxa weeye haddii aan halkan tagno aniga waa ii samaysan yahay waxa weeye partitionka la yiraahdo qufulka sida waad aragtaa quful baa ku xiran aan furnayn haddii aad aragto waxa weeye BitLockerku sidaad partition aada kuugu muhiima oo sida kuwan aadan rabin inuu u furnaado sida loo sameeyo weeye isla markaasna markaad jeceshahay inaanan cid kale kula isticmaalin ama wax muhiimaad ku gurato ayuu faa-iido weyn ku leeyahay oo aanay cidi waxaagii baadhayn hadday sawirro noqoto hadday macluumaad kale noqoto intuba halkaas ayay kugu jiraysaa maanta bal waxaynu u baahannahay sida looga furayo kaygan oo kale iminka markaan saa ugu dhufto waad aragtaa waxay weydiinayaa passwordkii BitLocker uu ku leeyahay enter your password to unlock this device si ay u noqoto unlock mid furan this device aladani kadibna waxaan gelinayaa passwordkayga ayaan gelinayaa hadna inter ayaan leeyahay intan markaan idhaahdo waad aragtaa uu iska furay iminka sida ku muuqata waad aragtaa iminka uu furan yahay qufulkiina halkaa waxaad ka aragtaa inuu qufulkii uu kala furan yahay asxaabay markaa bal waxaynu ku samayn doonaa insha allahu tacaala partitionkan kale ayaynu ku samayn doonaa laakiin intaynan casharka gudagelin digniin fadlan markaad samaynayso BitLockerka ha ku samaynin siidaada haddaad ku samayso waxaa laga yaabaa inaad garanba weydo isla markaana computerkaaga oo macluumaad fara badan uu kugu kaydsanaa aada sidaa ku ilowdo wax la jebinayana maaha ilaa aada formaat computerkaaga mariso wax ka baxaya maaha waxau kusiin doona iminka sidayn markaan casharka gudagallo koodh ayuu ku siinayaa koodhkaas ama falash ayaad ku qaadanaysaa oo meel baad dhiganaysaa aan wax kale aanad ku guraynin falash yar oo u gaara ayaad meel ku dhiganaysaa ama intaad print garaysato ama PDF ahaan ka dhigato ayaad ka dhigaysaa mobilkaaga ku qaadanaysaa meel qarsoodiya ka dhiganaysaa kaasi wuxuu ka faa-iido leeyahay haddii aad passwordkiiba garan weydo inaad kaa ku furato ayuu faa-iido leeyahay marka casharkeena ayaynu gudagelaynaa waxaanu tegaynaa partitionkan saac software ayaynu gudagelaynaa markaan gudagallo waxaan leenahay right click ayaan leenahay sida ku muuqata bartaas ayaynu tegaynaa turn on ka dhig BitLockerkii ayaan leenahay kadib waynu ku dhufanaynaa markaad ku dhufato cabaar ayaad yar sugaysaa halkan ayuu ku weydiiyey waxaad doorataa unlock this device kaaad u baahan tahay ma password baad rabtaa inaad geliso mise use isticmaal my smart cardkayga ayaan leeyahay use isticmaal halkan wuxuu ku leeyahay use isticmaal ee password baad isticmaalaysaa markaan smart card ma haysto dad badan oo kolley daawanayaan ma haystaan ma filayaa waxaan leeyahay waxaan isticmaalayaa anigu password markaan idhaahdo password ayaan isticmaalayaa waxaan leeyahay kadibna waxaan iska gashanayaaba asayr 1 2 3 ayaan gashanayaa kan hoosena haddana re-enter dib ugu celi buu ku leeyahay intii horaan ku celinaya kadibna waxaan leeyahay next ayaan leeyahay next markaan idhaahdo halkan wuxuu ku kala siinayaa choose fara badan ayuu ku siinayaa wuxuu ku leeyahay do you want ma rabtaa to back up inaad kaydiso your recovery key haddii uu keygaagii aada ilowdo kii aad kaga baskoon lahayd recovery keyga furihii boskiga ama furihii aad qaab kale aad ugaga furi lahayd haddii aad passwordki garan weydo haddaba waxaad ku save garaysaa to your Microsoft accountigaaga ku save garee save ama ku save garaysa buu yidhi to USB flash drive ku save garaysa ayuu ku leeyahay ama save waxaad ku save garaysaa to a file isagoo file ahaana ama daabaco britain maaha mid lasoo saarayo macnaha laakiin waxa weeye PDF ahaan ka dhigo daabac recovery keygaagii ayuu ku leeyahay markaa
anigu printigaasan ka dhiganayaa flashna intaad gashato ayaad flashta hadhow ka dooran kartaa. Sidoo kale waxaad samayn kartaa isagoo fayla baad save garaysan kartaa. Intaba waad ku samaysan kartaa. Marka anigu waxaan leeyahay print ide oo pdf ahaan igu si ayaan leeyahay print markaan dhahdo waxaan leeyahay dabeedna pdf ahaan igu rog. Halka waxaad aragtay pdf-ka ayay dooran print ayaan leeyahay. Dabeedna halkee ayaad ka dhiganaysaa ku leeyahay where halkee ayaad ka dhiganaysaa. Waxaan leeyahay markaas waxaad iga dhigtaa maxay ahayd pictureska dhig baan leeyahay magacana u bixi ayuu ku leeyahay. Dabeedna waxaan leeyahay bitlock ayaan leeyahay. Kadib save ayaan odhanayaa. Save markaan idhaahdo next ayaa active noqotay. Next ayaan odhanayaa. Halkan wuxuu ku leeyahay markaa encryption use disk space. Wuxuu ku leeyahay encryptionka waxaad ku isticmaalaysaa disk space only. Inta bannaan oo kaliya ayaad ku xidhaysaa. Faster aad u dheeraynaya marka aad ku xidhayso intaas ku leeyahay macnaha disk space only kaliya. Marka aad rabto inaad ku xidho wuxuu ku leeyahay faster waa mid dheeraynaya and best waana mid fiican for new PC computerkaaga drive iyo driveska. Kana wuxuu ku leeyahay encryption-kaaga drive-ka geli slower wuu gaabinayaa but laakiin best for PC-gaaga wuu ku leeyahay and driveska already waxay diyaar u ahaanayaan in use in la isticmaalo. Marka waxaan leeyahay only space-ka kaliya ayaan ka dhiganayaa. Marka next ayaan leeyahay kaas raanu daynayaa aan isticmaalayo disk space only fasterka dheeraynaya waqti dheer ayuu kan kugu qaadanaya siduu sheegayo. Sidoo kale kan wuxuu fiican yahay kale new PC-gu waa personal computerkaaga and driveska. Waxaan leenahay enter waxaan leeyahay next ayaan leeyahay. Halkan su'aal kale ayuu igu weydiiyay. Wuxuu ku leeyahay new encryption ama qalad cusub. Encryption waxa weeye inaad wax weji lahaa wixii wejiga laga ka bedesho. Tusaale ahaan xarafka ayaad ka bedelaysaa waxaad ka dhigaysaa qorbaab yar oo waxaan la akhri karayna oo qalada ay encryption la yiraahdaa. New encryption mode best for fixed wuxuu u wanaagsan yahay for fixed isku jirka devices aaladaha for fixed hagaajinta devices aaladaha on this device on drivesyada on this device aaladahan compatible mode kuna best wuxuu fiican yahay for drivesyada that also can be moved loo rarayo from this device-keeda la rarayo. Marka kaasir ayaan leenahay noogu daa kaasir ayaan u deysanaynaa. Kadibna wuxuu leeyahay start halkan qoraalka isku siiyay arigu ready diyaar ma tahay to encryption this device in encryption lagu sameeyo aaladan ama drive-kan baan leeyahay drive-kan buu ku leeyahay you will be unable waxaad awood u lahaan doontaa unlock inaad tiraahdo unlock waxaan log ahayn this device aaladan using oo isticmaalaya password isticmaalaya. Ana wuxuu ku leeyahay waxaad awood u lahaan doontaa inaad password kaga saarto aalad drive-kaagan kuyuuda software inaad password u samayso hadhowna using oo isticmaalaya password aad gasho. Encryption-kani maybe take waxa uu qaadan karaa depend on wuxuu ku xidhan yahay access-ka of the drive-kaaga. oo macnaha wuxuu ku leeyahay haddii ashyaa fara badan kugu jirto iminka saad aragto dibigeedaba wax yar baan ka isticmaalay in yar sawir yar aan badnayn baa yaala. Marka wuxuu ku leeyahay wuxuu ku xidhan yahay access-ka iyo xajmiga hore kugu jiray oo haddii wax badan kugu jireen partition-ka hadda ku xidhaysaa waqti dheer ayuu qaadanayaa. haddii si aan wax kale ku jirin wax sabab badan oo iska marnaa sida kaygan oo kale waxa weeye waqti dheer kugu qaadan maayo. Marka wuxuu ku leeyahay until ilaa iyagu ku leeyahay halkana until ilaa iyo encryption-kaaga is complete dhamaystirmayo your faylalkaaga uma baahna will not be protected ma noqonayaan kuwa ilaashan ilaa iyo encryption-kaaga uu complete noqonayo. ashyaada halkan kugu jirta aad rabto inaad xidho ma noqonayaan baa leeyahay waayo dee shaqadii weli lagu guda jiraa. start ayaan leenahay waxba kusii dheeraan mayno. start ayaan leenahay sidaad aragtay wuu bilaabmay wax yar ayaaba harsan intaa yar ayaynu sugaynaa. haabay markaa waxaynu doonaynaa insha allahu tacaala inaynu samayno wixii casharkii la degno ama wada daawano oo kadibna samayno laakiin diskisiida marnaba ha iskaga xidhin. ciladaheedu waa lagu xidhaa laakiin ciladaheedu mid haddaad dee qof ku cusub aad tahay ma fiicna inaad ku xidho oo dhibaatooyin fara badan baa kaa soo wajihi kara insha allahu tacaala. marka asxaabay sidaad aragtay hadda encryption of drive-kii is complete waa dhamaystirmay ayaa la yidhi.
sidaad aragto halkan taydan oo kale ayay la mid noqotay sida iminka ku muuqata. SaaS software sida ayaynu ku xidhnay asxaabay. Intaynu casharadan cashar dambe aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa asxaabay intaynu casharkan oo kale aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meelaad joogtaanba. casharkana waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah Casiir Aadan Salamaan, kanaalkuna waa SaaS software ee hamoogaan.